soo baxaya warar sheegaya in xukuumadda Addis Ababa qaar ka mid ah militarigeeda Soomaaliya jooga ay dib u la laabatay ka gadaal markii dagaal xoog leh uu ka qarxay waqooyiga wadanka Itoobiya. in ka badan 3,000 oo askari ah ayaa la sheegay in dowladda Itoobiya ay Soomaaliya kala baxday sida ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta caalamka. xukuumadda Addis Ababa iyo danjirayaasheeda jooga Soomaaliya wari warkaasi si dhab ah uma aanay xaqiijin. isla markaana Itoobiya waxa ay ka mid tahay dalalka ay Soomaaliya ciidamadooda ay caawinayaan. 3,000 askari ee la tilmaamayo in dowladda Itoobiya ay la baxday ayaa ilaa iyo hadda waxaan la ogeyn in ay yihiin kuwa ka tirsan AMISOM iyo ciidamo kale oo dowladda Itoobiya horaanba ugu joogay gudaha Soomaaliya, kuwaas oo aanay ka tirsanayn howlgalka Midowga Afrika sida ay ku andacoodaan dadka ka faallooda amniga iyo siyaasadda Geeska Afrika. Itoobiya waxaa la sheegay in 4,000 askar ka badan oo aanay ka tirsanayn AMISOM ay Soomaaliya ka joogeen. loo muuqanaya in hogaamiyaha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed hadda uu gabi ahaanba ciidamada xoogga wadanka Itoobiya uu ku daabulayo gobolka Tigray si loo soo gabagabeeyo dagaalka maalmo ka soconaya gudaha wadanka Itoobiya. wararka qaar waxa ay sheegayaan in xitaa kilalka shanaad ee Soomaalidu ay degto oo Itoobiya haysato halkaasi laga daabulay ciidamo kale oo aad u fara badan, waxaana hadda muuqanaya in Abiy Ahmed uu doonayo in uu go'aamiyo dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya, isagoo oo dhinaca kalena militariga qarankiisa ugu baaqay in si degdeg ah u soo afjaraan kooxda TPLF iyo sidoo kale xulafadooda. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada militariga dalka Itoobiya. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidamadeedu waxa ay garab ka helayaan ciidamo kale oo Ethiopian kuwaas oo la sheegay ka tirsaneen ciidanka AMISOM, waxaana gobolada inta badan ciidamadaasi ay joogan kamid ah gobolka Boqol, Hiiraan iyo gobollo kale. Ethiopia oo hadda ay dagaalo qarar ka soconayaan ayaan la ogeyn in xaaladda haddii ay sii xumaato ay la bixi doonto ciidamadeeda ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab ee fariisinkooda ugu weyn uu Soomaaliya yahay. dowladda dhexe kama aanay hadlin warkan ay daawaceen qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ee sheegaya in Ethiopia ay la baxday 3,000 oo askari oo Soomaaliya joogay. dowladda Ethiopia dhankeeda ilaa iyo hadda ma xaqiijin, inkastoo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda wadanka Ethiopia oo arrinkani wax laga weydiiyay ay si weyn uga gaabsadeen. Ethiopia hadda waxaa muuqanaysa inkastoo dalkaasi ay doorasho ku soo dhowdahay, haddana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu doonayaa in ka hor doorashada dalkaasi ka dhici doonta sanadka soo aadan colaadda isaga iyo Tigray u dhaxaysa si degdeg ah loo soo gabagabeeyo. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.